magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa soo gaaray gudoomiyihii wasaaradda waxbarashada xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda iyo garsoore ka tirsan maxkamadda racfaanka gobolka Sool. Mas'uuliyiintan ka tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo howlo shaqo ugu socday magaalada Taleex oo 4 bilood ka hor ay ka qafaasheen maamul goboleedka Puntland meel ku dhow magaalada Taleex ayaa waxa ay ka warbixiyeen sida loola dhaqmay inta ay ku xirnaayeen xabsiga magaalada Garowe iyo dadkii ka dambeeyay xarigooda. kulankan ka dhacay xarunta gobolka ayaa waxa uu gooreen ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Maxamed Maxamuud Cali oo si weyn u soo dhaweeyay mas'uuliyiintan. mudada dhaweeyay hadeerto mudada dhowr bilood ka dambeysay iyagoo wafti ah oo socda degmada Taleex oo ka tirsan gobolka Sool Puntland laga soo duulay oo halka iyagiyo rag kale oo mas'uuliyiinta la socday la qabtay oo xabsiga Garowe la geeyay oo sabab loogu soo duulay iyo sabab loo laayay ragga waxna ka dhinteen mas'uuliyiintii qaar ayna ilaa hadda garanayay wax ku kaliftay Puntland ragan col ahayn oo duulimaad ahayn oo degmadooda ku socda inay weerar inta leer ku kala bixiso oo waxna kullayso waxna ay yarotay ku xidho aan wali la garanayn inaguna aan dawlad ahaan wali wax jawaabayna ka bixin laakiin haddii badankeeda leeyahay kolley Soomaalidu waxay taariikh isku raayeen tagiba maanta inuu mas'uuliyiinta ay soo daayeen waxayna waxa waajib inagu ah mudanayaal iyo marwooyinba inaynu naga odayaasha oo dhigeenaha inaynu soo dhaweyno oo ku soo dhaweyno xarunta gobolka Sool caafimaadkii gaar ahaan. dhinaca kale waxaa isna kulankan ka hadlay gudoomiyihii hore ee maxkamadda racfaanka gobolka Sool Salaad Ismaaciil Maxamed oo sheegay weerarkan lagu soo qaaday inuu ka dambeeyay ku-xigeenka madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Janaal Cabdisamed Cali Shire. taariikhdii xariga naga soo martay ama saan noo qabtay si aad ogtihiin bishii Ramadaan 10keedii baan halkan ka baxnay annagoo u soconna deegaanka degmada Taleex kaasoo ay naga martay qaadeen ama aanu booqasho sharafeed ugu soconay ay iyagu naga codsadeen aanu ugu tageynay aanuna ka aqbalnay deegaankuna oo ahaa deegaankii aanu ka dhalanay ama ka soo jeedin markaanu maraynay meesha la yaama taano ayaa waxaa noo galay ciidan ilaaliya ku-xigeenka saddexda gobolka Bari Boosaaso gobolka Karkaar Qardho gobolka Nugaal Garowe Cabdisamed Cali halka waxaa nagaga dhacay dhimasho dhaawac dil hanti la wareego waxaana lagu shubay Garowe runtii halka sidaas markay dhacday warbixiya waxaanu intaa ku mutaysanay wax kale ma ahayn waxaad ka tirsantiin Somaliland mas'uuliyiin Somaliland ka tirsan baa tihiin waadna u kaalmeynaysa Somaliland baad u kaalmeynaysa runtii adduunku waa maanta berri shalay waxaa inoogu sugan taariikh waa inoogu sugan saddexduba ilaahay baa jideeyay oo abuuray midwalba waxay ku fadhidaa wax gaar shalay waxay ku fadhidaa taariikh. Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay arrinkan ku micneysay maamul goboleedka Puntland inuu soo tafaxeedanayo daandaasi ka dhan ah mas'uuliyiinta qaranka Soomaaliland. Mahad Cabdi Cali, telefishinka caalamiga Somali Channel, magaalada Laascaanood, xarunta gobolka Sool.